waxaa soo batay rag Soomaaliyeed oo sidii naagihii isku jiljilcinaya, qaarkoodna ay noqdeen qowmkii la nacladay ee khaniisiinta. Intaa waxaaba ka sii daran, madaxda qaar waxay rabaan in khaniisnimada ay ku talaalaan waddanka Soomaaliya oo ay Soomaaliya ka noqoto wax caado ah. Waxaan ku jirnaa taxanaheena halaag. qaybtan waa qaybtii 6aad. qaybtii 5aad waxaan ku soo aragnay khaniisiinta adduunka ku nool oo xuquuq loo sameeyay, ha noqoto wadamada reer galbeedka iyo wixii la mid ah. waxaan ognahay waagii hore in khaniisiinta la dili jiray oo la dayrin jiray, waa sida diinteena islaamka ay qabtee. laakiin maanta adduunka reer Yurub iyo waxay rabaan in xuquuq loo sameeyo ay dadka caadiga dhex galaan. intaan mowduuceena bilaabay, fadlan muuqaalka like inoo saar, sababtoo dhiirigelin bay noo noqonaysaa. kuna soo biir kanaalkeena xog baahiye adigoo subscribe taabanaya. TikTok waxa uu noqday meel ay soo galaan dadka ugu dhaqanka xun ee adduunka ku nool. ninka TikTok sameeyay ayaa maalin dhaweed waxa uu yiraahday, TikTok waxa uu sameeyay dadka ay wax ka siiyihiin iyo dadka camal la'aanta iyo wixii la mid ah. TikTok waxa ku jira dad wax faa'iido leh soo galiya oo bulshada anfacaysa. aniga naftarkayga akoon baa ku leeyahay macluumaadka taariikhda, waanada, waxyaalaha diinta islaamka ku saabsan, waxaas baan soo galiyaa. laakiin bulshada wanaagga soo galisa aad bay u yartaa, waxaa ka badan bulshada xumaanta soo galisa. ogow haddii TikTok aad soo galiso waxyaalaha negative-ka ah oo xun haddaad soo galisid, dadka uu ninka TikTok le ka hadlayo baad ka mid tahay. TikTok waxa uu sahlay in khaniisnimada si fudud dadka loogu gudbiyo, Soomaalidana aad ugu soo badato. ragga naagnaagta iska dhigaya waxay soo bateen markii uu TikTok yimaaday. waagii hore way jireen rag khaniisiinta caan ku ah oo lagu yaqaanay, qaarkood ay isbedeleen oo ay naasa durteen, oo haddaad sawirkooda aragtid waxaad ku dhaaranaysaa in uu naag yahay. laakiin naag ma ahane, waa nin Soomaaliyeed oo naag iska dhigay. qofkan ka hadlaya waad garanaysaan idinkaba, inaad sawirkiisa soo qaato muhiim ma ahan. wixii iigu yaabka badnaa aan arko intii aan noolaa waxay ahayd nin naag iska dhigay iyo gabar nin iska dhigtay ayaa waxay leeyihiin saaxiibaan nahanay, xiriir jecel baa naga dhexeeya. bal yaabkan ila arka, gabadhu nin bay iska dhigtay, ninkuna naag buu iska dhigay. laakiin ogow, gabadhu markay nin iska dhigayso dee xubintii ninka ma lahan. si la mid ah ninku markuu naag iska dhigayo xubintii naagta ma lahan. kollay aniga xubnahooda ma arkin, laakiin waa waxaan iska garan karno. qof nin iska dhigay iyo qof naag iska dhigay dee xubnahooda isma bedeli karaan. labadaa waa is jecelnaanay bay leeyihiin. hadhow markii ay isguursadaan, mid walba xubinta uu wato sow hadhow ku sasi maayo, war halka u dhaafi maayo, taas waa ka gudbayaa. wallaahi waxay ahayd waxyaalihii iigu la yaabka badnaa aan arko intii aan noolaa. sidoo kale waxaad arkaysaa rag xiranaya dharka dumarka oo muuqaalo ku duubaya, iyaga oo ka dhigaya waxa lagu qoslo oo kaftan iyo shactirey ka dhiganaya. laakiin nebigu wuxuu noo sheegay ninkii dharka dumarka xirta in nacalada ilaahay ay ku soo degayso, naagta dharka ninka xiragtana ay nacalada ilaahay ku soo degayso. iyaga waxa kaftan iyo qosol bay ka dhiganayaan, laakiin waa wax xun runtii. kuwo badan oo dharka dumarka xiranaya way og yihiin xadiiska, wayna yaqaanaan qofka dharka dumarka xirta isagoo nin ah in nacalada ay ku dhacayso, laakiin way xiranayaan. waxay rabaan views iyo like inay ku raadsadaan. sideedaba qofka dembiga uu galaya haddii uu og yahay uu dembigaa ku dhaco, dembigaas wuu helayaa. laakiin dad aan ogeyn baa jira, haddii adigoo nin ah dharka dumarka aad xiratid inay nacalad kugu dhacayso, inay diinteenna aysan banayn. dad aan ogeyn baa jira. dee qofkaan ogeyn wax dembiga ka soo gaari maayo, laakiin qofka og dembigaas waa leeyahay. waxaan xasuustaa waagii aan yaraa, markii go'a walaashay ama go'a hooyaday ama go'a eedaday aan xirto, hooya igu qaylan jiray, waxay dhihi jiray waryaha waa ceeb, dharka dumarka lama xirto. micnihii qof walba wixii lagu soo tarbiyeeyey buu yahay. Soomaaliya khaniisiinta xaq iyo xuquuq midna kuma lahan, oo qofka khaniiska ee maanta Soomaaliya ku nool waa isqariyaa. laakiin reer Yurub qofka caadi buu wadooyinka u marayaa, maalin gaar ay xafladaha qabsadaan baa jira, hoteelo iyo baarar lagu yaqaanaa jira. laakiin Soomaaliya waxaa kama jirto, sababtoo ah waa dal muslim ah. qofkii la arkay isagoo khaniis waaba la dilayaaba. xildhibaanada hore oo dowladii hore ee farmaajo ka tirsanayd Sacdiyo, maantana waxa waaye gudoomiye ku-xigeenka dowladda federaalka ee Xasan Sheekh hogaaminayo. maanta waa gudoomiye ku-xigeenka, laakiin dowladii farmaajo xildhibaan bay ahayd. haddaba Sacdiyo markii ay xildhibaanka ahayd
ahayd ee dowladdii hore ee Farmaajo waxay keentay sharci ah labadii qof ee ku heshiiya inay sinaystaan waa caadi bay tiraahday, laakiin labada qof haddii mid uu khasbo waa dembi. taasi waxay ka micno tahay gabar iyo nin ajnabi kale ah haddii ay heshiiyaan oo xumaantaas sinida ay sameeyaan waa caadi bay ka dhigan tahay. taasi diinta islaamka toos bay uga hor imaanaysaa oo micnaheedu waxa weeye sinadu waa xalaal, waa xeerka ay soo qoratay waxa ku qorane. haddeer xildhibaanadaas ma diinta islaamka ayay u hiilinaysaa mise way la dagaalamaysaa? bal sharciga haddii uu hirgalo sida gaalada oo kale oo sinada wadooyinka dhexdooda ku sameynayaan ay xalaal ugu tahay, ay laba qof leeyihiin saaxiibaan ah laakiin isma guursan, ay wada nool yihiin, waxaasoo dhici mayso. xitaa sharcigaas ay wadato waxaa soo hoosgelaya khaniisnimadu waa caadi, waayo waa laba nin oo heshiiyey. sharcigaas ay keentay xilligii dowladdii hore diinta islaamku si toos ula dagaalamayaa. khaniisnimadu banaynayaa, sinadu banaynayaa iyo wixii xun oo dhan buu banaynayaa. laakiin sharciga ay keentay madaxdii baarlamaanka waa ay ku laadeen. markii sharcigaas loo geeyey culummada oo la tusay aqoon-yahanada aad bay ula yaabeen. waxay dhaheen sharcigan diinta islaamka way ka hor imaanayaa. way bedeleen, sharcigii bay bedeleen, si u qortay maahane si kale bay u bedeleen. waa loo geeyey, iyadii sacdiyaa loo geeyey. waxay tiraahdaa maya, wixii aan anigu qoray baa rabaa in sideeda laygu ansixiyo. laakiin ugu dambeyntii sharcigaas waa la laaday. balse maantay waa guddoomiye ku-xigeenka dowladdan maanta joogta. waxyaalaha ay keeni doonto baan sugaynaa. kollay khayr ma soo wadee. sharcigaa hore ay keentayna kollay dee gaala usoo dhiibtay. waxaad arkaysaa dhalinyaro Soomaaliyeed markii ay TikTok soo galayaan iska dhigdhigaya naagnaago oo sidii dumarka u jaasaya. waxaa dhici karta qofka inuu views ku raadsanayo, laakiin ma oga dembiga iyo xumaanta ka soo gaaraysa. dadka ugu liita ee maanta adduunka ku nool waa dadka khaniisiinta ah. weligaa ma aragtay qof khaniis ah oo adduunka horumar ka gaaray? madaxda reer Yurub maxay u noqon waayeen haddii khaniisnimadu wax fiican ay tahay? waxaa la rabaa in bulshada lala dagaalamo oo xumaantu caado u noqoto. sideedaba qof liita oo noloshii adduun ka dhacay ayaa noqda qoomka xunka ah. odayaashii hore ee Soomaalida mid ka mid waxaa lagu yiri dunida waxaa ku nool rag wax ka dayaaya rag kale oo khaniisiin ah. markaas buu yiri ma khaniis baa dunida ku nool? aniga iyo khaniis adduunka ku wada noolaan mayno, labadeena mid baa joogaya. markaas ayuu caloosha mindi iska geliyey. odaygaas wuxuu ka xanaaqay, ka carooday khaniisiin adduunka kale ku nool. bal ka war haddii maanta lagu yiraahdo khaniisiin Soomaaliyeed baa jirta, muxuu samayn lahaa? taxanaheena halaag qaybtan qaybta xigta ee 7 waxaan ku arki doonaa qisadii Nabi Luut iyo qoomkii khaniisiinta wixii dhex maray iyo qaabkii loo halaagay. intaas ayuu mowduuceena ku eg yahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.